xukuumadda Soomaaliland ayaa joojisay shiray ku kulmiyeen jaamacadaha kala duwan ee xubnaha ka ururka jaamacadaha Carabta. Shirkan ayaa laba jeer hore ka qabsamay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay jaamacado kala duwan oo ku yaala gudaha dalka Soomaaliland iyo sidoo kale jaamacado xubnaha ka ururka jaamacadaha Carabta oo ka dhisan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo martigelintooda fidiso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. Shirkan ayaa sida la sheegay waxa laga hadlayay tayeynta waxbarashada jaamacadaha xubnaha ka ururka jaamacadaha Carabta, waxaana hor istaagay furitaanka tababarkani ciidanka booliiska iyadoona la sheegay in shirkani ka qayb gali karin xubnaha ka socda jaamacadaha Soomaaliya. Professor Ahmed Musa Ismaaciil oo xiriiriyaha dadweynaha jaamacadda Burco ayaa ka hadlay arrinkaasi. waxa maanta halkan ahayd in lagu qabto munaasabad weyn oo ahayd tababar lagu tayeynayay waxbarashada tacliinta sare jaamacadaha kamida ururka midowga jaamacadaha Carabta oo ay jaamacadaha Soomaaliland ay kamid yihiin jaamacadda Burco ay kamid tahay. Jaamacadda Burco markaa waxay martigelisay shirka qarada weyn leh ee miisaanka leh ee tayeynta iyo kor u qaadista tacliinta sare ay ahayd. wasaaradda waxbarashada ayaa ogolaanshiyaha iyo martiqaadka casuumadaha jaamacadaha intaba bixisay. waxa shirka hormuudka ahaa oo joogay horkacay agaasimaha sare ee tacliinta iyo wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada. hase yeeshee saaka markii aanu ku talagalnay in aanu bilowno tababarka ayaa carqalado amni ay nagu yimaadeen, waxaana lagu amray jaamacadda Burco in laga saaro dadka koonfurka yimi ee tababarka qayb ka ahaa. ugu horeyn waanu ka xunahay dadka markii hore martiqaadka iyo sifada sharciga dalka ku soo galay annagana martida noo ahaa in lagu carqaladeeyo. waanu ka xunahay raali kama nihiin hadaan jaamacadda Burco nahay, anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha, anigoo ku hadlaya afka ardayda, anigoo ku hadlaya afka madaxda jaamacadda iyo dhiimankeedaba. runtii kulay amarkan wuxuu ka soo baxay xukuumadda ayuu ka soo baxay. cidda noo timi waxay ahayd taliska qaybta biliiska, taasaana keentay in la joojiyo in oo la hakiyo maanta uu socon waayo. weli adigu madaxdii jaamacadaha Soomaaliland shir bay u fadhiyaan, waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida uu sawirka uu yeelan doono shirku qaybtiisa wajigiisa labaad. Engineer Faisal Ali Waraabe musharax madaxtinimada xisbiga UCID iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaguna ka hadlay arrintaasi, waxaana kamid ah hadiladoodii. waxaan saaka halkan u imi marka hore farxad bay ahayd, waxaan doonayaa inaan kelmadka ilaaho tamarkan magaalada Salawaad ee duwada Carab wadamada caalam islaamka ah tacliinta ku saabsan aanu imi, laakiin waxaan kala kulmay wax aan filinba. waxaan kala kulmay tiyo leeyay jaamacadihii madaxda jaamacadaha ka timid Soomaaliya ayaa leeyay kama qayb gali karaan. arinta aad iyo aad baan reer Burco iyo iyagaba aan uga siinaya magaalada taasi aad iyo aad ugu xumnahay. Burco oo u baahneed in Burco kor loo qaado profiilkeeda. mu'tamarkana wuxuu academic buu ahaa, wax siyaasadda ma aha. in siyaasadda la kala saaro magaalada academic-ana yahuudi wax isku talaaba Falastiiniinta iska tago ka qayb gala ismaarada iyo shirarka cilmiga. marka arintaasi arin waxa nasiib darro weeye. أنا مركان كتعسيد سيدياشي وهاي أنا مركان ما يصعدا تعسيدنا يا واحد ذي شيء أنا وحوي ولد السومال هذا ما أنت كل مية كم بدحدي هاي تبيه جيس وموضع في الماء. وأنا كحنا هاي واحد معنول ببرع كل دعية وأنا أيام درو دبرعنا وحلا يكدو عيسته هذه واحد نقول تعسيدين وفودي فربنات اسكوتي ما أنت دون شيء مدة كذا شركة نشربوها برع كرو قاضية سمعت ديسة برع وحسو كردينية. Hargeysa laba jeer hore lagu qabtay dadaal ay jaamacadda Burco gashaa maanta lagu keenay in Burco lagu qabto. waa ayaan daro uma maray maayo in mar dambe lagu qabanayo maanta hadii waxaas kaga dhaceen malay maayo iyadoo isbedel dambe yimaado mooyaane aanu garan maayo Burco meel ay dambe ku dambeyn doonto. aad iyo aad baan uga xunnahay anoo xidhibaan Cabdullaahi Xasan oo kamid ah goolihii deegaanka. Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.